بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ugu horeyn dhammaan waxa weeyaan leaderska sharafta leh ee halkan joogta iyo bahda saxaafadda kulligiinba waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam kadib magacaygu waa Cabdisamed Xuseen Xasan waxaan ka mid ahay company-ga Talk Vision waxaan ka ahay dadkii ugu dambeeyay baan isleeyahay hadda ku soo biiray muddo bila baan ku jiray aan sii badnayn teamka Hargeysa ka tirsanahay dhowr qodob oo kooban ayaa rabaa inaan la wadaago waxaan rajaynayaa dhammaan dadka halkan fadhiya waa dad wada leaders ah oo company-ga ka wada tirsan leveliska ay ku jiraan ha kala duwanaadaan laga soo bilaabo min akademiyada hoose ilaa iyo waxa weeyaan stariska oo 1 star 2 star ila triple star ila markaynu tiigsano qofka ugu sareeya Soomaali ee company-gan soo daadiyay ee Soomaali dhex keenay oo ah Maxamed Yaasiin oo Diamond ah oo isagana runtii aad iyo aad ugu bogaadinayna dadaalka dheer uu galay inuu company-gan Soomaali soo gaarsiiyo markan inta ka imaado kalimaadkaygu laba qodob bay taaban doonaan kelmadda koobaad waxaan ku doonayaa inaynu in yar isla eegno aan soo ururinaya maadaama aynu nahay leaders macnaheedu waxa weeye waa hogaamiyeyaal waa hogaamiye waa leadership macnaheedu waxa weeyaan markaynu soo ururino waa القدرة على تحريك الناس نحو الهدف بالغ وقفنا أود يشو أو كرتي أود يطاقة ويشو إنه ضد كنقاشيو يسقو نقاشينا يا إنه توصي هدف كودي وحقي هدف كيه ميلودو ده يشرتي إنه قارسيو هميلاد إنه مركز ربنا وحويه إنه كذا حركة كمبينيجن واتنا يدريمس كنا يريوين كنا يوحويان himlooyin kaynu leenahay nolol adduunyo to aakhiraba inaynu ka dhaxaragno oo company-ga Talk Vision oo inoo bidhaamiyo isla markaana teamkaynuga hoos qoran ee downline-keena ee upline-keena ee naga hoos farcama inaynu iyagana tusin karno hadafkoodu halka uu yahay si iyaguna uga dhaxarkaan company-gan gudihiisa oo iga xaqiijiyaan ahdaafta kala duwan ee nololeed ay leeyihiin to aakhiriyo to adduunyo intaba إذا وحين أردت كرينا كمبنيات Talk Vision هذا وصل لابتو أنا وأنت كمبنيات كأنك أوجهي كوشقيا نظام كديجيتال ماركتينج كلا يقارنه أما نتورك ماركتينج أما أونلاين ماركتينج أنت بحالي له فرنتي وحن دراسة فرمدن كسمية كمبنيات كنوع عاصة كوا بدنا كمدنا ولا شقي Talk Vision يكوا كلا بهذا نمكنا ولا شقيا waxaan runtii soo baxday muddada kooban ee ku jiray company-ga oo baaritaan dheer ku sameeyay in badan aniga oo isqorin muddo ilaa 2 bilood waxay ku qaadatay inaan company-ga horta baaro intaan isba diiwaan gelinin baaritaan dheer kadib waxaan ku qanacay company-ga inaan iska diiwaan geliyo xubin ka midana aan noqdo waxaan runtii aan aad iyo aad ugu qanacsanahay rabaana inaan la wadaago dhammaan leaderska iyo bulshooyinka reer Burco ama reer Somaliland guud ahaanba ee halkan ku sugan company-ga Talk Vision runtii waa company qiimo badan laba sababoodba markaan soo koobo iyadoo sababuhu badan yihiin laakiin markaan soo koobo laba qodob baan ku soo ururinaya mid weeyaan horta qodobka koobaad tacab badan iyo hawl badan iyo dhidid fara badan iyo rafaad aad galaysaa ma jiro waa company si professional si smart adoo hawlahaaga iska wata haddaad arday tahay haddaad hooyo tahay halkan hooyooyin baa ka hadlaya waliba waxa weeyaan sodoha waa ayeeyooyina marketinga waa laga guuray digital marketing baa loo socdaa Soomaalidu ma fahamsan digital marketing-ka uu ku cusub yahay laakiin inaynu fahamno oo maskaxda aynu tuujino oo waxan inoo imanaya aynu si fiican u eegna waa muhiim inaynan ku xisaabtamin oo kaliya tawkii loo jiray traditional ee qadiimiga ah oo hooyo ii dhiibta ah imika waa laga sii socdaa oo dunida waxay u socotaa modernka ama digital marketing-ka network marketing-ka ayuu lahayn ba wax riski oo la taaban karo oo company-ga gudihiisa ku jira hal mid marka laga reebo qodobkaas wuxuu kaliya ta waa nafteena
inagoo caqabad isku noqona inagoo himiladeena iyo awooddeena arki weyna inagoo oo ka faa'iidaysan weyna waqtigeena iyo daaqadeena iyo tabarta ilaahayna geliyey qodobkaasun baa riski lagu noqon karaa marka inagu nafteena iyo inaan caqabad ku noqonin ee caqabadaha aynu iska hor qaadno iska hor xaadno diriimiskeena iyo familooyinkeena iyo ahdaafteena aynu adeegyo markaa baahi loo qabay oo ay ka mid yihiin video email maadaama aan ognahay wixii 2004kii wixii ka dambeeyay inagu aanan video email aan isugu diri karaynin hab email ah sidoo kale wax soo saarka shirkaddan ama productskeeda waxaa ka mid ah video newsletter, media library, video chat, sign up form iyo live meetingska oo loo yaqaano imika Zoom oo wada taqaanaan bulshada uga faa'iideystaan waxyaalo badan tusaale ahaan kulamadooda inay ku wada kulmaan sidoo kale qaab waxbarasho ahna waa loo isticmaalaa Zoomka productska kadib shirkaddan hadda maxay noo qabanaysaa waxay leedahay hab faa'iido ama aan oran karayno shaqo abuur lagaga maarmi karayo dhammaan wixii la oran jiray tahriib ama wadanku kaga caban jiray inay jirto shaqo la'aan maadaama uu qofku isoo gurigiisa jooga uu ku shaqaysan karayo hab online ah shirkaddani waxay chance siinaysaa qof walba oo jecel inuu ganacsi ka sameeyo oo wuxuu u sameynaysaa video marketing sidoo kale hadaba company-gu muxuu faa'iido leeyahay haddaan faa'iidooyinkiisa wado company-gu dadku waa company dadka ay hab dhaqaale iyo ganacsi uga faa'iideysan karayaan sidoo kale waa company wadanka dib u maalgelinaya haday tahay inuu caawiyo dhalinyarada si looga maarmo san hore soo sheegay khataraha iyo tahriibka ay ka mid yihiin sidoo kale wuxuu koob u qaban doonaa dhalinyaradaas gobolka Togdheer insha Allah sportiska taasina waxay keenaysaa isdhexgalka dhalinyarada inuu kor u qaadayo haddaba haddii aad doonayso tusaale ahaan company-gan inaad ku soo biirto waxa caado ah inay sameeyaan qaab meeting ah ama kulamo lagugu sharaxayo company-ga waxa uu yahay waxyaalaha uu qabto sidoo u shaqeynayo insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo linkiga ay waxaad arkaysaa linkiyadiisa kulay aad baa looga isticmaalaa in ka Burco Hargeysa iyo Muqdisho gobolada Soomaalida ee degtoodan aad baa looga isticmaalaa insha Allah waad arki doontaan sidoo u shaqeeyo maadaama oo lagugu dhigayo ama lagu sharaxayo hab meeting ah waxyaalaha qoto intaanan ka bixin ama hadalkayga aan gabagabaynin waxa jira qof isagana inoo soo gudbiyay inaan u mahad celino Ilaah ka sokow oo ah Maxamed Yaasiin oo aad isagana Soomaalida u baray sidoo kale Xaliime Maxamuud Ciiche oo iyadana qayb weyn ka ah tiimamka Soomaaliya ka jira oo dhan inay aasaasto oo sidoo kale ay dadka iyadana barto uga faa'iideyso walaalaheeda Soomaaliyeed timi rag iyo dumarba ee ka soo qayb gashay company-gan anigu waxyar ayaa ku jiray company-ga insha Allah ta'ala marka waxaan ugu jiray ama aan islahaa marka hore bal horta asaasaha bari hore waxa dhacday wax la yiraahdo shell inta dadku galay inay maxaan ku dhahdaa ku qasaaroobeen marka dad badan oo aan isku xidhannahay oo markii aan galay maxaan ku dhahdaa waxa iga weydiiyay ayaa ku bal aniga tagaya ama aan soo hubsanayo meesha gunta jibinaya waxaan halkan ugu imi dad wanaagsan oo ahlu sharafa culimo ah islaam ah wacan oo ah dadkii aan maxaan ku dhahay lagu xilmi jiray ama hormuudka noqon jiray sida la ajligeed waxaan leeyahay bulshooyinta ama dhalinyarada ama intii aan isku xidhnaynba dhammaanteen aan ka soo qayb galay company-ga sida aan uga soo qayb galay ama intii la socotay imka aan uga soo qayb galay si wacan oo sharaf leh aan uga soo qayb galno wixii aan quudno aan waa shaqo يعني aan lahayn riba lahayn oo xagga shariicada markii laga wadiyo waxa la xitaa qaar bay ugu dhimay riba ma leedahay maya riba ma laha waxaan ku raahdaa waxa weeye shaqo maxaan ku raahdaa ilaashan oo wanaagsan ribana aan lahayn sida la ajligeed waxaan ka codsanayaa dhalinyarada waayeelka dadka meelaha iska jooga inay quuraan niyadooda iyo himadooda inay siiyaan oo ay ka soo qayb galaan maxaan ku raahdaa company-ga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh baleynaya sida quruxda badan ay isu soo maamusheen ama xafladan uga soo qayb gasheen dhammaantiin waxaan leeyahay insha Allah waxaynu wadanahay dad timidhaxaasina waa dad maanta shirkadda ugu badan doonayay inay mustaqbalkooda kaga bedelaan waxaan leeyahay gurgaan dirajeynayaa halkaa iyo kasihiisi waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dadkii kasoo shaqeeyey kabelgan inay soo gaarsiiyaan Soomaali maadaama aynu nahay dadka shaqooyinka iyo waxyaabaha caynkaas aynu aad ugu yihiin marka waxaan halkan ka yara tilmaamayaa liidharada inoo soo gaarsiiyey Soomaali haddaynu nahay sida Maxamed Yaasiin oo kale Xaliime Maxamuud Ciiche
xalimo oo run ahaantii qofta tiimamka Soomaaliland ama Soomaaliya oo dhan ku nool iyo kuwa wadamo kale joogaaba ay ku qoran yihiin oo hoos yimaadaan waxaan leenahay iyadana aad baad ugu mahadsantahay sida quruxda badan ee aad ula shaqeynayso ummadaada Soomaaliyeed Talk Vision anigu waxaan ku jiray muddo 4 bilood asxaabteedana waxaan ku dhiirigelinayaa inay kusoo dhiiradaan oo ay ugu shaqaystaan hab online si ay uga sameeyaan lacag iyo business imikana waxaan ugu baaqayaa inay kusoo dhiiradaan oo ay horumar ka gaadhaan waxa jira dad imika leaderisa oo intii aniga la igu dhiirinayay iyagu heerka gaadhay aniguna markii aan arkay inay heer ka gaadheen sidaas oo kale aan ugu soo dhiiraday rahmatullahi wa barakatuh dhammaan waan salaamayaa mushawaynta awalan ilaahiga mahadnaq subxaanahu wa tacaala halkan isugu keenay noo soo tukadiyay sunnada asmaha saaka xafladda baraarada masha Allah kama waxaan ayaa mushawaynta mutasharafta iyo golayaasha xafladda walaalkay maxamed yaasiin oo ashxariya يا رمان أنت خليت إذا تفضل توصل إلى الشهر اليوم الأخبار وحالي هاي هنبالي هنبالي يوم هذه أهل المسجدين على 10 سنتيمتر كملة محمد هذاي تيم كان ما حد ما أنا كمل فوتوفيشن إحنا هاي تطبخ الخروجات يعني وقت الشغل قم استعراض كل سكوتي سكوت أيام وين في الدنيا شيء على السياسة يصدق عليه يتمكن من الوهج من التوضع الأيام هاي وصعداء ما يفهم تعرف استعراض كويسو هذه على الماء والسنته واحد كل شيء طبعا استكمله مدة سنة كانوا بيشون وهم يسيروا يديروا بالكتير وبتشان علي إن شاء الله ونفوت بالسكين بالله إدارة في عنتي الهدوء سبحانه سبحانه وتعالى لماتنا ويقولون هذا الأيام حلال هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته دمانتين مروئي مدنة دميرية ويل دمانتين والد السلامي أنا جو كمد حبين كمد كمبني كلام سوق اللي مقالة ما شاء الله تبارك الله وحنون هالنقيا ولا شيء اللي إمك هالكن ولا شيء اللي إمك هالكن إنه شيء كتير وحقبتك كمبني جن ما شاء الله تبارك الله كمبني جن وقت جن ما تدري شو وقرن كتان لقد سنة ودنبيه ودنيا واحد نافيه عذرك إلى هاي اللي جن بدقليه أنت كنتكتين إلى هاي هون حريستو أنت ما تقول شيفتنا إلى هاي كمكيو إنك إلى هاي نقوم مكانه maxay day marka waxa la go'aansaday adduunku wuxuu dib ugu soo noqday habka la yiraahdo LMM-ka ama network marketing-ka ama online-ka in wax lagu iibsan karo laguna ganacsan karo hooyo kasta iyo aabo kasta iyo dhalinyarada maanta waqtiga joogta waxa jaanis ay u heleen iyagoo guryahooda jooga iyagoo hawl maalmeedkooda qabsanaya iyagoo xafiisyadooda fadhiya intaba inay dhaqaale ka sameyn karaan iyagoo hawl maalmeed lagu jiro waxaan leeyahay mahad weyn u celinayaa walaalkeena Soomaaliyeed walaalkeen Maxamed Yaasiin kow ka yahay xiddi garaysa way garanaysaa waa wiilka korona xiga oo jeclaystay inuu walaalihiisa la qaybsado nimcada fadhiga loogu shaqaysanayo inay ka faa'iideystaan iyo walaasheen Xaliimo Maxamed Ciijiye oo iyadana Ilaahay waxaan leeyahay faatixada ugu maraxaajiyeed walaal dhakhtar ku jiro Ingiriiska ku nooshahay inuu Ilaahay caafimaad degdega uu soo rogo biidnillaahi tacaala dadaalkana waxaan leenahay تدابير بينهم قطنا بإذن الله تعالى فدقها السلام عليكم ورحمة الله تعالى تعبية دداليو مسكح تمرين إيسا لقوتيك سداقول شركة الباطل كيتمي ترمين إيسا لعقها تاب دقاتيوتا تكالات كل إيسا وشركة تسقاطو طولك في شوية لما أقول استاش كسوق يبقى مدشن بلان مقام كسر له runtii waxaan marka la saddexaad u mahad celinayaa shirkadda ama kambaniyada la magacbay Talk Vision oo runtii awsaaska iyo lahaa dadkan ku guuleystay abaalmarinta in halkaas u keenan runtii anoo ku hadlaya magacayga waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa oo aan mubaaragayaa kambaniga Talk Vision